qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Shabeellada Hoose ayaa eedeyn ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagraan iyagoona ku eedeeyay golaha wasiirada cusub uu soo magacaabay inuu ku duudsiiyay qayb ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee deegaanka halkaasi xuquuqda ay lahaayeen waxayna tilmaameen in xuquuqda ay ku lahaayeen Koonfur Galbeed uu duudsiiyay Cabdicasiis Laftagraan oo ah madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyagoona ku hanjabay in aysan la shaqayn doonin maamulkaasi ilaa iyo cadaalad ay ka helayaan waa kuwaana qaar ka mid ah odayaashaasi oo kulan ku yeeshay maanta degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Bismillahirrahmanirrahiim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan halkan istiidiyan ka sheegaynaa maadaan ahdaanu nahay bahweynta Abgaal ee ku nool gobolka Shabeellaha Hoose waxaan u soo jeedinaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed maadaama uu diiday wasiirka xaq aan u lahayn waxaana lagu qaybsanayo deegaan iyo dhaxal ay tahay oo noo diiday wasiirka xaq aan u lahayn waxaan u cadeynaynaa madaxweynaha Koonfur Galbeed in uu deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose ka tirtiray beesha Abgaal hantida u badan maqal iyo muuqaal gobolka Shabeellaha Hoose waxay ka baxdaa degmada Afgooye hanti bad iyo beer iyo guryo cid nooga badan ma laha deegaanka gobolka Shabeellaha Hoose ilaa Baraawe ilaa Buulada Jameeco buur afkeeda ah bad waa ku leenahay beeran ku leenahay xoolo ma guurtaan ku leenahay haddii madaxweynaha Koonfur Galbeed uu diiday xilka wasiir aan ku lahayn Koonfur Galbeed waxaan u ictiqaadeynaa in Abgaal gobolka Shabeellaha Hoose dhanba kuma tirsana in ay tahay kelmadaas waxa waaye hadii ilaahayd maayo Koonfur Galbeed maamulkeeda waa looga horeeyay haddana waa looga dambeey doonaa waxaana ku sheegaa ninku hadduu nin madaxa ee ummad maamul u qabtay oo yahay inuu wax isku wado oo ummadda isku celiyaa laga rabaa inuu kala geeyo laga marrabo waxaan ku sheegaa Soomaalida degan gobolka Shabeellada Hoose nin walba tabartiisu intay tahay hal la ekaato waa laga xusay bahweyda Abgaalna waa laga tagay waxaana la yiri ninki geeda tiriyay ee yaa ka tagay wuxuu tiriyaa la yiri meesha Abgaal looga tagay ee ummadahaas kale ta laga xusay ee Abgaal oo yahay laf dhabarkii gobolka Shabeellada Hoose waxa waaye dawladda Koonfur Galbeed Cabdikariin Laftagraan oo mas'uulka ka yahay annagu ma taageerayno waan ka soo horjeednaa kalsooni haddaanu hayna waa kala naqanay maanta waxaan noo dhaxeeya dib asaga oo abuuray wixii meeshaas dhiboo ka yimaadana mas'uuliyadeeda asaga qaaday maanta waxa dhacay waxay nala naqdeen wax aan qaado weynay oon suurtagal ahayn ahaana doonin waxaa dhacday nin qoraayahayo reer Mareykan ah wuxuu yiri ninka la yiraahdo Hitler dunida baldaceeda ma eegino yiri buusna taariikhda ma akhrino yiri Laftagraan waxay ila tahay cid kula talisay iyo asagaba dad aqligooda oo raqiis yahay inay la taliyaan asaguna oo qaato anagu gobolka Shabeellada Hoose 8 degmo Soomaali waa istaqaanaa cid isla waxa waaye Abgaal ambuga hanti culus tahay amaad awood uga culus tahay waxaan u maleeyahay in hoos leeso fiirsho ay ka soo jawaabto laftarkeeda xataa cid doonta aato anagu ma lihin raxan weyn ma lihin digli mirifla gooni u sameeyno waxaan ka mid nahay qabaa'ilada degan Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose 8 degmo qabaa'il kamid oo isleeyahay Abgaal waa uga ganacsi culus tahay waa uga hanti culus tahay waa uga daaqsi culus tahay haddii aseenda la yiraahdo uga culus tahay horta inuu banaanka yimaado la rabaa dad ehel iyo qaraabayo walaala oo weligoodu war xun dhex marin in aad ma taqaana cunsuriyad iyo qoqob iyo qabiil aad ku samayso ee Abgaal cilka bilkuma dhulkana bilkuma la aatiraad aad iyo aadan waxunahay waxaan ku sheegaa ha kala geyn dadka ehelka ha kala geyn dadka walaalaha ah ha kala geyn dadka taariikhda soo jireenka ee wanaaga dheer ee ummadda Soomaaliyeed ay ogtahay ee raxan weyn Abgaal u dhaxay ha kala geyn adigu Abgaal wax ka baryima wax ka tuugima wax ka marabyo dagaalka gobolka Shabeellada Hoose Jubbada Hoose Jubbada Dhexe baaya bakoolka hadda adiga aad ka taliso meel uusan deganayn male dad ya deeqa meel walba u yaala asbeero ku leeyahay xoolo ku leeyahay hanti ma guurta ku leeyahay dad aqoon yahano ku leeyahay
dad saraakiiloo ku leeyahay wax kaa baryi maa walahaadna ka rabina kaama rabiyo waxaan u sheegaa beesha raxan weyn lafta garaan nin wax garta maaha laakiin beesha raxan weyn ayaan meediyahan waxaan u marsiyaynaa annagoo ah bahaweynta beesha abgaal ninkaa mini ilaahid maaho iska daaya iska celiya yowsan colaad idin gelin yow dhib idin horseedin dad ehel iyo walaala weligood taariikhdu aynan xumaan dhex marin ummadda Soomaaliyeed ay ogtahay idinkuna aad ogtihiin inuu haddeer colaad dhex gasho ninkaas doonaya ma doonayno madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Laftagaraan wasiiradii uu soo magacaabay dhawaan ayaa durbadiiba waxa iscasilay dhowr wasiir iyo waliba wasiir ku xigeenno iyagoona sheegay inaysan u qalmin xilkaas loo magacaabay maantana waxaa soo ifbaxaya cabasho ay qabaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee deegaanka gobolka Shabeellada Hoose iyagoo sheegaya in beeshooda aan la siinin wax xuquuq ay ku leeyihiin koonfur galbeed Abdiraxmaan Kambala Kalson TV Muqdisho